waxa ay dhowaan ku soo biirisay isla nolosha laba dhedig ah iyo mid lab ah, waana tiradii ugu badnayd ee abid ay ku soo biiriso isla nolosha. Wayna adag tahay si ay u waajahdo isla noloshani. Markii horeba ay adkay sida loogu noolaan lahaa, haddase waa sidee u barbaarin doontaa isla afartani. Waxay u dhaqaaqaysaa dhakaas iyo goobaha ugaarsiga oo aanan ahayn kuwa sahlan wax looga ugaarsado ama looga helo isla maalintaas. Waa mid u baahan awood ama karti ka dheeraysa isla kuwa kale. Tan ayaa maanta ah tay isku dayi doonto inay ugaarsato, iyaduna kama ogolaan doonto, oo iyaduba waa hooyo u diyaar ah inay sii noolaato. Hadda orod ayay bilowday, dagaal ay huqatay, dusha ayay ka kortay, markiiba dhinaca ayay ka raacisay. Dhulka ayaa la iskaga dhifanaa, waa lagu dhiftay, waa la iskaga dulbooday. Way ka hadhay markan, waayo si xun ayay dhulka ugu dhacday. Sidoo jaankuna aad ayay u halis badan tahay, nafteeda dhan inay disho ama inay lafaha jabiso ayay u badan tahay. Sidaa kuma diin doonto, waa inay wax soo heshaa. Xagga isqarinta waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin macallimiinta dhan ee waxbara ama iyada wax laga qaato. Soo dhawaanaysaa hadda, way aragtay dusha mar kale ayaa si xun dhulka loogu dhiftay. Kamay hadhin, dhinaca ayay ka raacisay, way iska laalaadinaysaa, waa lagu celiyey hadan. Inan hadaf ayay leedahay, ka hadhi mayso. Wixii doona ha gaadho ama dhibtii doonto ha ku dhacda. Markana dusha ayay ka kortay, culayskii oo dhan ayay dusha ka saartay, waa laga farabaxay markan. Nasiib darro, sidaas ayay maanta uga badbaaday, iyaduna iyadoo silicday oo niyad jabsan ayay iska noqonaysaa. Waxay ku noqotay isla ubadkii oo iyakuna u baahan inay wax ka nuugaan. Calooshina waa faaruq oo weli waxuma gelin. Dhibaatada silicna weli way wajahaysaa. La soco qaybta labaad iyo qisadan iyo se u dhiman doonto.